maalinta saddexaad baabtiiska ciise masiix sanadkii 15aad ee boqor kaysar tabeyrus markuu bilaatus gudoomiye ka ahaa gobolka yuhuudiya boqorka herodna ka talinayay gobolka galiili kayaafas iyo anaasna ahaayeen hogaamiyaasha diinta ayaa codkii ilaah nabi yaxye meel banna ugu waxyooday wuxuu maray webiga urdun isagoo dadka ku wacdinayo in lagu biyo daahiriyo si calaamad ugu noqoto inay dembigooda ka toobad keeneen dembiyaalkiin ka toobad keena oo biyo xalidinku daahiriyo ilaa dembigiina wuu dhaafaya sida horeba lagu sadaaliyey kitaabka rasuul ishacya od nin ayaa ka yeerayo meelban ah oo leh jidka u diyaariya rabbiga imaatinkiisa jidka asiga ku soconayo toosiya dooxo kastana buuxiya taag iyo buur walba sima jidka meermeerka toosiya jidka rafka ah sima ummadda oo dhan waxay arki doonaan ilaaha badbaadintiisa idinka ilma abeesoy maxaana la faray annaga jihadeen ahnaa nacaawi haddii adigu aad go' leedahay sida lagu faraysi kan waxba haysinin kii cunto haysta hala qaybsado dadka nebiyow annagu cashuur qaadayaal baan nahay maxaana la faray cashuurtii laydinku amray ka badan ha qaadanina annaga askarteenna maxaana la faray qofna maalkiisa ha ka hoogina qofna bila dembi ha ku nabina mushaharkiinna ku qanca noo sheeg adiga masiixa duubanaha miyaa tahay anigu biyo ayaa idinku daahirinayaa laakiinse waxaan imaan doonaa qof aniga igu muhiimsan oonan istaahilin inaan kabihiisa furo isagu wuxuu idinku daahirin doonaa dab iyo ruuxa quduuska shabis koroorka waa diyaar si ay ugu tumaan balka qamadiga ka dibna baqaarka u geeyaan ruuxa quduuska wuxuu ku soo degay sayid ciise isagoo qaab quulliya leh cod ayaa samadda ka yeeray oo leh adigu waxaad tahay wiilkayga aad baan kugu qanacsanahay kow sidee buu yuuxana akhbaartiisii ugu dabaqay dhegaystayaasha kala duwan 2 yuuxanaa muxuu ka sheegay ciise masiix 3 sidee bay ilaah iyo ruuxa u xaqiijiyaan baabtiiska ciise masiix